بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. waxaan rabaa kelimad yar oo kooban inaan meeshan ka soo jeediyo oo ku saabsan dilkii foosha xumaa oo loo geystay walaalkeen Cabdinuur aadan xayir oo lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. baan rabaa inaan wax yar aan ka iraahdo. waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala afar mas'alo oo muhiim ah. mas'alada koobaad, dilka iyo waliba khaarijinta oo la yiraahdo iqtiyaalka iyo qaabka uu community-geena ugu badan yahay hadda yaan rabaa wax yar inaan ka dhaho. waxaan kaloo wax yar ka hadli doonaa mas'alo yar hordhaco ah qof kasta inuu dhimanayo geeridu sugayso. waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala wax yar oo ku saabsan macna Cabdinuur iyo tacriifkiisa oo kooban. waxaan ka hadli doonaa marka ugu dambeysa haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed muslimka ah ee degan Minnesota maxaa nala gudboon markuu dilkan oo kala dhaco, iyo marka ugu dambeysa dadkii ehelka ahaa ama ganacsatada ahaa ama iyaga iyo Cabdinuur ay wax ka dhaxeeyeen ama wadaadada ahaa ama macallimiinta ahaa maxaa la gudboon. baan rabaa insha Allah taala inaan wax ka dhaho. danta ama qaradka ulajeedada aan ka leeyahay kelimadan waxa weeye oo keliya in community-geena aan baraarujiyo oo aan u sheego ama aan la wadaago dilkan inuusan ahayn dil caadi ah ee uu ahaa dil fool xun una baahan inaan ka tabaabushaysanno asoo kale usoo noqnoqonin, iyo inaan u ducayno walaalkii la dilay, aan u ducayno dadkuna ay ogaadaan xaaladiisa iyo siday ahayd. waxaan rabaa marka koobaad inaan idin xasuusiyo anoo nafteyda ku bilaabaya, geeridu waa xaq. qof kasta oo naga mid ana wuu dhimanayaa. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ahaa qofkii ilaahay abuuray ee ugu fadliga badnaa adduunka inta ilaahay abuuray ayaa ilaahay la hadlay suuratu anbiya. markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi: wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum alkhaaliduun kullu nafsin daa'iqatu lmowt. uma anaan yeelin nebi maxamed oo qof adiga kaa horeeyey, bashar adiga kaa horeeyey inuu adduunka ku waaro. ilaahay wuxuu leeyahay haddaad adigu dhimatay ma ayagaa dadku waari doona oo joogi doona. markaasuu ilaahay wuxuu yihi kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf kasta way dhadhaminaysaa geerida, laakiin waxaa lagu imtixaamayaa dadka shar iyo khayr. ilaahay xaggiisaana loo celin doonaa. hadduu nebi maxamed dhintay yaa adduunka ku waari doona. nin shaacirha wuxuu lahaa: ay cabdu kam yaraaka allahu caasiya xariisan cala dunya walilmowti naasiya an nasiita liqaa'a allahi wallaxda wathara wayowman cabuusan tashiibu minhu nawaasiya walow ana alcabda lam yalbas thiyaaba min attuqa tajarada curyaana walow kaana kaasiya walow ana addunya taduumu liahliha lakaana rasuulu llahi xayan wabaaqiya. addoonka allow meeqee ilaahay ku arkaya adoo caasinaya oo ku dadaalaya adduunka iyo noloshiisa, miyaad halmaantay la kulankii alle iyo luxudka iyo qabriga mugdigiisa miyaad halmaantay? markaasuu wuxuu leeyahay hadduusan addoonku xiran dhar taqwo alla ah uusan alla ka baqin, xataa hadduu dhar qabo wuu qaawan yahay. haddii adduunku uu qof u daa'imayo u joogayo, nebi maxamed baa joogi lahaa sala allahu alay wasalam, laakiin ilaahay baa bini aadamka dhan dhimasho ku qoray. nebi maxamed baana ugu fadli badnaa oo dhinto geeriyooday sallallahu alayhi wasallam. qof kastana geeridu way sugaysaa. masaladaas waa masalo muhiim ah wey. masalada labaad, Cabdinuur aadan xayir ee lagu dilay magaalada Minneapolis oo ku caan ah macallin Cabdinuur, wuxuu ahaa waalid dhowr iyo 10 caruur ah ka tegey. wuxuu ahaa macallimiinta culimada imaamiyada ah. nin ka mid ah wuxuu ii sheegay intaan anugu Minneapolis u soo guurin mar hore oo aad u fogeyd ayaan wuxuu yiri darsi u akhriyay 80 arday ah oo dhalinyaro ah oo Cabdinuur macallin u ahaa quraanka uu bari jiray oo lacag ka qaadi jirin.
ee ilaahay dartii uu u baryay oo qaar badan oo ka mid a ay macallimiin caan hadda noqdeen marka macallin buu ahaan jiray macallin dugsi daaci buu ahaan jiray markii dambana wuxuu noqday aabbo haddana wuxuu noqday ganacsate anu markii ugu horreysay oon bartay waxay ahayd 2004 markii ugu horreysay Minneapolis imid aan safar ku imid wuxuuna markaa joogay maktabad caan ahayd oo masaajidkii Shaafici oo hore ku oli jirtay isagoo markaa cajalada diini duubaya oo muxaadarooyin duubaya ayaan bartay ganacsiga uu galay mararka qaar kood qofka hadduu ganacsi galo waxaa dhici karta dad inay wada tacaamulaan shirkada isku darsadaan xogaa khilaafaan deyma yimaadaan isku dhacdhac yimaado taana masalada marka u dambeysaan ka hadli doonaa insha Allah taala masalada saddexaad oo aan rabo inaan wax yar ka iraahdo waxa weeye dilka loo geystay macallin Cabdinuur xaqiiqatan dil caadi ma aha bal Soomaaliyay arrinkan ku baraaruga dilka la yiraahdo iqtiyaalka waxa weeye assassinationka qofka oo si hoose loo dilo oo inta loo soo dhuunta la dilo asoo gurigiisa jooga oo kaligiisa inta loo soo galay xabad lagu furay madaxa laga toogtay la dilay waa dil aad u foolxun weey waa dilka dadkeeni meel ay joogaan ba dhameeyay haday joogaan wadan gaalo iyo haday joogaan wadankii dilka dhameeyay weey iqtiyaalku marka waa dil foolxun oo dilka caadi ah ka duwan waxay gaarsiiyeen culimadu inay dhahaan hatta iqtiyaalka xaqqa qofka iqtiyaala oo assassination qof ku dila xaqiisu ma xaq bini aadam oo wali iyo dadka ehelka la weydiinaye waa xaq caam ah waana xaq ilaahi bay gaarsiiyeen inay dhahaan iqtiyaalku waa arrin aad u foolxun arrinta aad ka u foolxun markay dhacday oo nin ganacsada ah oo nin weyn ah oo dhowr iyo 10 caruur ale oo degan inta gurigiisa maalin cad loogu soo galay 5 xabadood lagu dhuftay oo la dilay oo madaxa laga toogtay arrinkaas waxay u baahan tahay in aan wadankan aan joogno dadka jooga inay ka hadlaan oo community-ga ay ka hadlaan oo uu soo kala soo noqnoqonin wadankan dambiga waxa lagu baaraa oo wax lagu noqdaa qofku inuu hadlo marka dadka community-ga waa inay hadlaan oo ay booliska la hadlaan oo dadka wax baara dambiyada la hadlaan oo la cadeeyo dambigan yaa ka dambeeyay in la baaro hadaadan hadlin waxba laguma baarayo marka pressure in la muujiyo oo la hadlo oo la soo baxo oo dadka ay wujuudkooda sugaan weeye si dambigan kale u soo noqnoqonin hadii kale waa bidaayo foolxun iyo bilow foolxun weeye waan arki jiray wiil dhalinyaro ah ama dhalinyaro leeyahay way istileen ama qof dhalinyaro meel lagu dilay laakiin waalid ganacsada ah oo mas'uul ah oo gurigiisa hameen inta loogu soo galay maalin galab 5 xabadood urta wax horay u jiray ma aha inaga waxa leenaga hayo marka laba arimood koow in aan haddaan nahay dadka Soomaaliga ah ee community aan ka tirsan ee muslimka ah in aan garab istaagna cadaaladda oo mar walba aan cadeyno qofka aan ku tuhno dilkan oo aan aqrinin wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiis sahih muslim ee ku sugan nabigu wuxuu leeyahay la'ana Allahu man awa muhdithan ilaahi hal la'anado qofkii soo dhaweeyo oo qariya oo hoy geliya qof muhditha muhdith waa qof dambi iyo dib geystay oo la koofar gareynayo la dadayo way haddaan marka wadankii joogno iyo haddaan qurbo joognaba iyo haddaan joogno meel kasto joogno waa inaan qofka dambiilaha aanan dadin oo aanan koofar gareynin oo aanan qarinin waa in aan cadaalad garab istaagno qofka wax dilay hadduu walaalka yahay hadduu wiilkaaga yahay hadduu aabaha yahay hadduu saaxiibka yahay waa inaad sheegtid oo farta ku fiqo tiraahdi kana wax dilay haddii kale dhibkaas adigana uu ku saameyn lacanadaasna way kugu dhici mujtamacana uu saameyn masalada kale ay naga rabo waxa weeye dadka dambi baarida wadankan inaan la shaqeyno oo aan hadallo oo aan dhahno waa in la cadeeyo dilkan dadkii geystay oo la raadiyo oo aan laga soo qaadan si dambiyadan la leeyahay dad darooga isku caysanaya isdilay qof madow ah la dilay xuquuqdiisa aan waxba laga soo qaadin arrinkan in la weyneeyo oo dadka mas'uuliyiinta ah ee ku jira golayaasha dawladda ay hadlaan oo culimadu hadlaan oo ganacsatadu hadlaan oo odayaashu hadlaan oo qof kasta siyaasigu hadlo oo la cadeeyo arrinkan inuu yahay arrin bini aadanimada ka baxsan asoo kale u soo noqnoqonin
masalada ugu dambaysa waxa weeye dadkii wadaadka macallin cabdinuur allah u naxariistay ay wax dhex mareen ganacsatada ahaa macallimiinta ahaa ehelka ahaa xaasaska ahaa waxaa laynaga rabaa walaalka inaan cafino oo haddaan xaq ku lahayn aan ka saamaxno oo mar walba waxay noogu badisaa oo noogu fiican tahay oo noogu khayr badan tahay inaan wax cafino nabiga sallallahu alayhi wasallam markii xaaskiisii la tuumay oo abubakar gabadhiisii ahayd oo abubakar nin la jiray mistax ibn athatha uu ka gooyay biilkii uu siin jiray uu yi wallahi baanu mar damba wax siinaynin waxaa kusoo degtay aayad qur'aan oo ilaahay uu leeyahay waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum ha iska dhaafeen oo ha iska cafiyeen miyaydaan jecelayn inuu alla idin cafiyo markaasuu abubakar wuxuu yidhi balaa inaa nuxibu yaa rabbana an takfira lana rabbigeenoo waxaan jecel lahay inaad noo dembi dhaafto waanan cafiyey buu yidhi waan u dembi dhaafay wixii aan sii jiray waan u soo celiyey haddaad marta aad dhahdo qofka waxbaan na dhex marayoo aakharaan la sugayaa waxaa ka khayr badan oo ka wanaagsan oo ka ajir badan oo ka fadli badan inaad cafido oo dhahdid maadaama walaalkii maanta uu dhintay oo uu ka hooseeyo qabri uu ku jiro waan cafiyey waan iska dhaafay ilaahay dartii waan u saamaxay haddaad ehel tahay haddaad xaas tahay haddaad tahay saaxiib haddaad tahay macallin haddii ganacsi idin dhex maray haddii dayn idin dhex martay in la cafiyo intaas kadib ilaahay waxaan ka baryayaa macallin cabdinuur inuu ilaahay u dambi dhaafo dhiiggiisiina ilaahay uusan qarinina qofkii dhiiggaa galay ilaahay inuu bannaanka soo dhigo oo ilaahay fadeexeeyo oo ilaahay kashifo oo uu ka dhigo ilaahay mid ay dadka muslimiinta ah iyo jaaliyadan soomaaliga ay ku farxaan oo ku indhanuursadaan oo ay arkaan qofkaasoo la hor keenay maxkamad oo bannaanka yaalla oo warkiisa ilaahay kashifay baan ilaahay ka baryayaa dembigiisa allaha dhaafo wuxuu hormarsada wanaaga allaha u laalaabo wixii xumaan ahana allah ka dhaqo ehelkii iyo carruurtii uu ka tegayna ilaahay ha kabo meeshii ay ka filayeen oo waxtar ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in wax ka khayr badan ugu bedelo oo khalaf ilaahay uu u geliyo oo khaliif ilaahay uu uga noqdo asagana uu jannada geeyo ilaahay uu iska saamaxo baan ilaahay ka baryaynaa annagana ilaahay uusan na fidnaynin ajirkiisana uusan naga xaaraam yeelin diinteennana kadib uusan naga fidnaynin maalintaan dhibana kelimada tawxiidka uu nagu dilo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu